dhawaaqay shirkad cusub oo la yiraahdo Pontus Marine Ltd waxaana ka shaqeyn doontaa soo saaridda kalluunka iyo suuqgeyntiisa iyadoo saldhigeedu noqon doono Soomaaliland siiba magaalooyinka Maydh iyo Berbera waxaana shirkadan hore laga dhawaaqay dalka Britain siiba caasimadda London mariyaha guud ee shirkadaasi Axmed Abubakar Cabdullaahi waxa uu sheegay in kompaniga weyn ay ku jiraan siyaasiin caan oo ka soo jeeda dalka Britain sida wasiirkii hore Afrika u qaabilsanaa dalkaasi Pilgrim iyo siyaasiin kale ka soo shaqeysay qaramada midoobay ganacsato ka mid yahay Maxamed Cali Yuusuf Gurey isagoo ka hadlaya kompaniga ujeedadiisa loo asaasay waxyaabaha doonayna waxa weeyaan in ay wadanka UK iyo wadanka Somaliland noqoto shirkad ka hawlgasha kana sajilan sababtoo ah kalluunkeenu uu yaala haddii aan la soo bixi lahayn waxa dhib inaga haysata waxa weeyaan inaynaan haysan technicality ama farsamadii aynu kalluunkeena kula soo bixi lahayn marka say taas ugu gasho shirkadan waxa jeerka ah Mr. Henry Bellingham waxa weeye wasiirkii caalamiga wasiirka xiriirka Afrika ee wadanka UK ee hore isaga jeerka shirkadan xagga dhaqaalaha iyo arrimaha khusayana waxa CEO ka ama Mr. Mohamed Yusuf Ali Gurey oo isaguna khabiir xeel dheer ku ah dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo sharciga waxa isaguna consultant technical consultant ka nin la yiraahdo Stephen Atkinson Stephen waa khabiir maarinka oo United Nations ku ahaan jiray ilaa sanadkii 1981 sidoo kale waxa uu sheegay in lacagta ku baxaysa shirkadan cusub ee Pontus Marine Ltd ay noqon doonto 5 milyan oo dollarka Mareykanka iyadoo shir laga siin doono shacabka Soomaaliland waxaan yiri waxyaabo fara badan baa ay ka fiican tahay in wax la wada yeesho waayo wax wada lahaanshahaasi wuxuu hirgelinayaa inay dadku wax wada qabsadaan annagoo taa ka duulayna waxaan doonaynaa inuu noqdo mid qeexan saamiga guud ee shirkadda la doonayaa in la ururiyo waa 5 milyan oo dollar 5 milyan waxaan ugu talagalay in qofkii maal gashanaya uu gashado sheerkiiba noqdo $1 ama dollar qura laakiin waxaan doonaynaa minimum share ku qofku iibsan kara inuu noqdo $500 halkan iyo $1,000 oo wadanka dibadiisa sababtuna waxa weeye paperwork ama waqtiga ku baxaya in la process gareeyo qofkii hadduu hal share ka iibsada value for badan ma samaynayo soo waxaan ugu talagalay qofku wuxuu iibsanayaa share ugu yar oo $500 wadanka gudihiisa kunna waa wadanka dibadiisa 5 milyan waxaan ugu talagalay inay ku dhamaato insha Allah 30 bisha Toddobaad